golaha iskaashiga ah ee hab consortium wuxuu xooga saari doonaa dhinacyo badan oo muhiim ah oo ka mid yihiin kor u qaadida tayada waxbarashada tacliinta sare ee cilmi baarista iyo hal abuurka u adeega arrimaha bulshada kobcinta awoodaha saddexda jaamacadood golaha hab consortium wuxuu dowladda kala shaqeyn doonaa ama diyaar u yahay inuu dowladda kala shaqeeyo arrimaha sameynta cilmi baarista waxaan sameyn doonaa haddii alla idmo cilmi baaris gundhig u noqoto dejinta siyaasadaha wax ku oolka ah ee qaranka iyo horumarinta maamul wanaagga Somaliland annagana ilaahay wuxuu qadaray inaanu waxbarashadii gaar ahaan tacliinta sare aan gacanta ku hayno in aan been laga sheegin waxa ubadkeena la barayo oo intii tamarteena ah dhaqaaluhu inoo saamaxo innagoo iskaashanayna duruufaha kale inay noo saamaxaan in ubadkeena la baro qodobada aanu consortium asaaskiisa ka midka ah waxa weeye aanu diirad isha ku hayna wax ka mid ah aqoonta inaan degaamayno waxa weeyaan aqoonteennan inay ahaato mid degaamaysan oo macnaha ka jawaabaysa baahida Somaliland imika cilmi baaris aanu jaamacadda Burco ku sameynay waxaad arkaysaa xataa family inay disintegration ku sameysay dadkii maartay miiga joogay oo islaantii lacag gaar ah loo shubayaa inankii ariga raacay lacag gaar ah loo shubayaa waxa laga family inuu xitaa isku qabsadaba marka in a way it's okay oo waxa weeyaan de waa lacag wuxuu taraysa dadkii oo markay u baahan yihiin laga yaabo inay kaga baxaan dhibaatooyin badan saddexdan jaamacadood waa saddexdii ugu horeeyay ee iskaashiga xagga ciddii xasuusan malaha macallimiinta qaar baa jooga barnaamijkii Scotland odhan jiray annaga tagnay saddexdii jaamacadood Nairobi European Union kan qancinay in barnaamijka tababarka macallimiinta dugsiyada hoose loo baahan yahay maanta dunidu sidoo ku socoto markaad eegtid xagga mashaariicda iyo horumarka iyo wax walba waxa soo ah researchka ama cilmi baarista haddii aad aragtaan wadan mashaariicda ku badatay maalgelinta ku badatay wax badan ku batay waxa weeye wadan ay bateen cilmi baaristiisu waa resource aad iyo aad u qaali oo qiimo badan 15 kun oo maskaxood iyo kun aqoon-yahan meesha isugu yimaadaan wayna naga xalili karaan runtii mashaakil fara badan oo ina haysta qaran ahaan barkali forma dhaqdeen marka saddexdiina la isku geeyo waxaan u arkayaa hab inay tahay the Silicon Valley of Somaliland Silicon Valley sida u taqaanaan waa meesha maskaxda America taalo wixii laga yaabo halkaas la geeriyaa iyaga miracle ku sameynaya iyaga wax ka soo saaraya waxa weey waa naqwadii jaamacadaha saddexdan jaamacadood waa naqwadii marka aanu baarayno markaanu ardayda jaagarayno waliba qolada cusub iyo qolada ka baxaysa graduate garoobaysa inta badan waqti badan kuma lumino saddexdan jaamacadood sababtu waxa weey waxay aad u raacaan nidaamka waxaynu markaa haddii la yiraahdo aan idinku bogaadinaynaa inay saas ugu timaadeen admissionka haddaa midaysaan iyo haddii aydan midayninba waxa ku tartami kartaan quality-ga dadka soo saartaan sida yihiin cilmi baarista soo saartaan inta ay leeg tahay marka waxyaalaha aan isleenahay wasaarad ahaan la ka shaqeeya dadka nala shaqeynayaana de baarashadu waa jaamacadaha laftoodu halbowlay u yihiin waxyaalaha aan doonayno sameeyno dadka ardayda ay soo saarayaan ee dadka advice ka siinaya ee jaamacadaha soo baxeen marka iyaga laftoodu in ay koorsooyinka iyo xaalada daray lagu daro waxyaamaha waxaanu dhahnaa waxbarashaduna way hooseysaa maxaa keenay de waxay u baahan tahay inaan balka hore baadhno